بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدبني السلام يا أصحابتي دقالك الشرف بدن كسر دوادا كلتون صحن صحو إن شاء الله وطن هذا كوري وحن بدلي دونا وح بدن إن معرفتي عنتا كارينتا دينا عنتا maadaama gabdho badan oo Soomaaliyeed ay cunto badan oo kala nooc kariyaan aniga waxaan jeclaystay dhinacan inaan wareego marka insha Allah waxaan isku dayayaa xaafadayda hadii Ilaahay yiraahdo boqolkiiba 80 inaan u bedelo digir iyo waxa dhulka ka soo baxa khudaarta ama maaragtay digiraha waxa adiga ciida ka soo baxo dhan insha Allah يعني waxaan uga jeedaa waxa dhulka sabax waa ciid ka soo baxa marka hada digirtii baan soo adeegayaa digirihii baan soo adeegayaa dukaan waxaan imi Soomaali leedahay oo maaragtay ma tirin karo digirta taala waxa yaalan nooc kasta digirna marka macnaha aniga digir ana iska dhahaye yani magaca guud weeyaan laakiin waxa uu se kala baxaan boqolaal ما شاء الله تبارك الله دكان كان كاديغاني waa Riyam Grocery waa dukaan Soomaali leedahay oo maartay caan oo ah oo lay wada yaqaano dukaan wadanka Soomaalida malaha laba bilaabmaday ma sha Allah tabaaraka Allah aad u dad wanaagsan oo maartay si fiican macaamiishooda u soo dhaweeya ay joogaan hadda muddo 8 sano baan ka adeeganay waxaana wanaagsan markaad qof tahay meel degan inaad meel shad ka adeegatid laga yaqaano haduu xalaal ka yahay hilib xalaalka haduu yahay dukaan meel kasto yahay gaal iyo muslimba meel laga yaqaano laana wax kasta kugu dhici kara waxa kugu dhici kara marmar bad kaarka ka lumi kara waxbaad waayi kartaa lacagtii aad markaa waxaad ku tala gashayba waxba kaas noqon kara marka qofka ku yaqaana cid u yahayba uu dadka kaaga duwan yahay marka ma sha Allah tabaaraka Allah waa soo adeegay markaan soo adeegay badanaana waxa la sameeyaa dadku waxay sameeyaan digirteedo gasacada ku jira bay soo gataan aniga laakiin waxaan isleeyahay kuwa gasacadaha hadaysan dhala ahayn waa iska khatarteeda ay leedahay adiga bir intaad wax ku shubtid ku daboolo kaga tag xilliga rabto bay daxalaysan kartaa maaroobi kartaa marka kalihi baan soo waday marka digirtii baan soo waatanaa inta nooc ay tahay intii isqaadan kartaba waan isla karinayaa waxaad ka dhigi kartaa maraq waxa ka sameyn kartaa suugo maraq waxaan uga jeedaa dad baa maraqana suugo u yaqaan laakiin waxa uga jeedaa suubka waxa ka sameyn kartaa maxay haytoy boorash waxa ka sameyn kartaa suugo suqaar waxaad adiga rabto wax ay diidaysa malahan wax ay ku diidaysa malahan marka waxaan sameynayaa intii isqaadan kartaa waa isla karinaya insha Allah hada inta adagoo dhan waa hadhowta baaquli baan ku soo shubay waa ka arki doontaan insha Allah waan markaas la sameynaya arki doontaan marka maadaama xaafada hadda barayona tartiib baan baraya aniga qof kasto walaalkay waxaan kula talin lahaa runtii marka hore aniga waxaan soo arkay ila soo arag soo raadi bal digiraha maxay taraan soo raadi markaad waxa soo dhan soo heshid inta fitamiino ay ka caawinayaan horta vitamin D dambe vitamin E dambe maxay hayto B12 magnesium ka maba dhihi doontid waxbaaba hooseeyo maba dhihi doontid black blood sugar-ka kacsan ama dhacsanna maba laga maqli doonaba soo adiga soo raadi soo akhri markaas arki doontaa marka adiga soo fahantidna reerkaaga dhan ka dhaadhici ciyaalkaaga odaygaaga qofka saaxiibkaaya qof kasta ka dhaadhici ila raadi waxan maxaa wax tara cuntada inoo wanaagsan markaas qofkana wuu ogaanayaa maxaa dan inoogu jirtaa ilmaha risqeerka baxta ogaanaya ku fahmaya marka ma sha Allah tabaaraka Allah ana hadda soo martisid adigaagan hadday daawanaya marti ii soo noqotid wax kale ku siin maayo digirtaasaan ku karinaya noocay doonta baan kugu kariyo ma sha Allah tabaaraka Allah waa kaftan laakiin runtii waxaan naftayda la jecelahay baan qof kasta la jecelahay oo walaalkaya ani markaan wadankii joogay ma cuni jirin hal digir ba oo la jirtay digirta cas ma cuni jirin waxaas dhigi jiray dadka cunaa yani dad caayda baan dhigi jiray yani waa la yaabi jirin xoolaha kaliya loogu talagalay mood jiray marka ma sha Allah baaquligan soo qaatay badanaana waxa fiican waxa dhalada ah baa la dhahaa fiican wax lagu sameeysto
meel kastayna yaaliin laakiin meesha ugu jaban aan kasoo gato waa dukaanka Kmart way yaqaanin reer Australia way yaqaanin dadka wadamada kale joogaana meesha idinku jaban oo maasha Allah markaa ka gadan kartaan waa taqaanin walaalahayga qaaliga digirta markaa digiraha markaan eegay expire date dhanba waan ka waayay waxaan dhahay hadhow dhalooyin baan ku shushubayaa aad korka kaga qortay xilligeega dhacayaan baa sahay waaba ka waayay hadda waxaan kusoo shubay galeydii digirti waaweyneyd maaragtay ay kaliyaha dhahaan oo waaweyn oo maaragtay fuulkana anagana Soomaali xalii jiray fuulka taa waaweyn iyo ta kale digirti kale casayd digirta iyadana madowga ah iyo ta greenka intaas hadda waa 5 wax baan soo shubay galeyda wax yar tayalowga waa wax yar adag laakiin intaas aan soo sameeyay waan dhaqayaa inta aan awoodo baan dhaqayaa ilaa 5 jeer baan dhaqayaa hadda adiga qof wiswis badan tahayna ka sii badan dhaq marka dhaqdi si fiican dhaqdid biyaha ku shubaysaa biyaha hadhowta ma daadinaysid markay rado ku jilicdo waad iskula karinaysaa haddaad karinaysid haddaad shiidaysid waa iskula shiidaysaa laana marka hore si fiican soo dhaqday laakiin markan ay raday biyaheedii waxa laga yaabaa nafaqadeedii inay qaadato ilaa way qoydaye marka ku hayso insha Allah isla shiid waa kaasa insha Allah videoga iga gabagaboob iyo uu gaaban yahay waxaan rajeynayaa ka heli doontaan iyo fahmi doontaan waxaan ka wado ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa